bismillaahi raxmaan raxiim waxaa suurtagal inoo noqotay inaan waraysi gaar aan la yeelano rugcadaad siyaasi ah hogaamiye weyn oo ummadda Soomaaliyeed magacii maamuus ku leh Axmed Salebaan Cabdalla oo loo yaqaano Dafle waxa uu ka mid ahaa shantii sare ee golaha sare ee kacaanka ee muddo 22 sano hogaaminaya waddanka Soomaaliya waxa uu ku nool yahay magaalada Brussels ee waddanka Belgiumka suurtagal ayay noqotay inaan la kulmo oo nolosha aan ku qaabilo Axmed Salebaan waxaan filayaa markii xukuumaddiina ay burbureysay anigoo aad u daayar in xukuumaddu ay burburtay marka nasiib iyo sharaf ayay tahay inaan kula kulmo marka hore Cabdiraxmaan Xudayfa la yiraahdaa telefishinka qaranka ayaan u shaqeeyaa waad mahadsan tahay Axmed waxaad faahfaahin naga siisaa halkan ayaad ku nooshahay waxaad markuu hore faahfaahin naga siisaa noloshaada iyo halka aad ku dambeysay iyo sida hadda xaaladaadu ay tahay xaaladeedu waxa weeyaan waa laaji wax kale ma aha haye laaji waxaad ula jeedaa soo galooti aad tahay soo galooti baan ahay waa gartay wadani Soomaali baan ahay waa gartay ilaa iminka wadaniyadoodii mana qaadanayo waa gartay oo macnaha baasaboorkoodii ma qaadan Kenya baan haystaa waa gartay tii Soomaaliya wata Axmed waxaad inoogaga warantaa sababaha aad ku diiday in baasaboorkii waddankii aad ku noolayd muddo 20 sano ka badan maxay tahay waxa weeyaan waxaan jinsiyadeedan horta jecelahay waa gartay jinsiyad kale inaan ku darana ma doonayo markaad rabtid inaad socdaashid qaabkee u socdaashaa marka keenan ku socdaa waa gartay socodkaygu ma badna laakiin marka aan socdo keenan ku socdaa Axmed Dafle ayaa lagu magacaabaa waxaad ahayd shantii sare golaha sare waxaa soo martay nolol aad u fiican oo qiimo badan ayaa soo martay hadda marka aad dib u fiiriso waayihii aad ku jirtay iyo waayaha hadda lagu jiro iyo waddankii sida uu noqday maxaa sawir ku muuqda wax weyn baa u dhaxeeya waad ogtahay ma sharxi karo runtii sida uu waddanku noqday waa wax laga sinaxaa dad sidaa isu galay ilaa innaga isu galay dad sidaa isu galay oo liidnimada heerkaas isu daadejiyay waxa weeyaan waa wax laga naxaa runtii markay innaga tahay dadka kalena dee waa inala yaaban yihiin adigoo raalli ah qaran burburkii waddanka Soomaaliya ka dhacay ma is leedahay sabab ayaa kula heeday waan ku lahayn sabab maxay sababtaa waxaan ugu lahayn muddadaanu dheeraysan haye waxaan islahay waxbaad kordhinaysaan waana kordhinay runtii haye laakiin dadku waa nala garan waayay waa gartay marka waxa loo baahnaa in sidaanu markii dambe wadnay si fiican aanu mar ka horreysa ku dhaqaaqnaabay ahayd waa gartay markii dambe waxaanu samaynay constitution baanu samaynay waxaanu samaynay constitution aqbalaya axsaab badan iyo baratan maxaan ku idhaahdaa ummadeed oo loo baratamo siyaasadda waddanka waa tahay Axmedow marka taas waxay ahayd 2 sannadood ugu dambeeyay baan hawshaa galnay waa gartay waxay ahayd 5 sannadood iyo muddo ka horeysaba in hawshaas macnaha waxaad rabteen in xukuumadda aad ka degtaan oo aad shacabka talada aad ku wareejisaan annagu inaanu ka degno oo ku wareejino maahe inaanu annagu dadkii ka mid ah nala baratamo waa gartay waa tahay marka dad badan waxaad moodaa in ninkii doonayaana ka dego waa gartay adigu shakhsiyan maxaa doonaysa markaas anigu inaan baratamo baan doonayay waa gartay 22 sano kadib maxaa dhacay marka waxa dhacay dee waxaad aragteen haye waxa dhacay burbur waxa dhacay dadkii oo isnacay waxa dhacay dhiig badan oo shumay waa gartay waxa dhacay maxaan ku idhaahdaa waddankii oo maxaan ku idhaahdaa maanta heerkaa taagan oo aad iyo aad u baaba'ay xabaddii markay bilaabanaysa halkay ku sugnayd adigu xamar baan ku sugnaa haye qaabkay uga soo baxay waxaan kaga soo baxay anigoo maxaan ku idhaahdaa socdo oo dee maxaan ku idhaahdaa dhabbada raacaya yaan kaga soo baxay
واقف يا كل سعد ما oo u bareeray haddii la dilayana hal la dilo haddii kalena aan nabad galo oo baxo oo aan ahayna way nabad geliyeen dad badan oo adiga kula mid ahaa sida Xuseen Kulmiye wadanka ayuu ku haray adigu marka marna ku suurtagal weeyday in wadanka aad ku sii nagaato maya marka haya waxa shaqeynayay qabyaaladda shaqeynaysay marka oo maxaan ku yiraahdaa wax walba ka guud martay dabadeed qabyaaladii ninna waxay siisay inuu joogi karo oo dadkii si dhinac dhibaatada waday kama raacinay markii dambe waa la dhacay oo waa la xumeeyey oo waa la farxumeeyey runtii waa gartay isagii iyo odayaashii kale ku haray waa gartay laakiin markii hore waxay islahaayeen cidina idinma taaban karto waa sida ha dadka qaarna waxay islahaayeen ma nabad gelaysaan haddii aad sii joogtaan si fiican dabadeedna way dhaqaaqeen waa gartay ha adigu marka halkee qabatay kismaayo waa gartay deeso dabadeed waddankan dibadda uga baxay waa tahay marka Axmed waxaad noo sheegtay intaasay dhacday marka sababaha aad u ordayseen dadka idin bursanayay ma waxaad u haysateen inay idin dilayaan mise waddanku isaga daaya oo idinku ahayd maya maxaad uga baxsanayseen haddiina la helo rag badan baan dili lahaa waa gartay waa tahay marka oo nalaga adkaado hadda aad iyo aad annagu qudhidayadu dhulka ismaanu dhigneen waa tahay marka laakiin nalaga adkaado ha madaxdii talada waxaanu si garanay markii hore inaanu bal dawladdii bal horta u sii dayno dadka raba dawladda inay xukumaan waa tahay marka madaxdiinni marka soo garanaysid iyagiina waa isdileen oo kuma heshiin waaye aad iyo aad madaxdiinni marka aad soo baxdeen dibna isku raadsateen balse aad isku xal waraysataan maya maxay ku dhici weyn waxay ku dhici weyd nin waliba wuxuu ka dhacay meel waa gar maqrib iyo maqshir baan ka dhacnay waa gar aniga halkanaan joogaa nin ila jooga oo kale oo raggii madaxda ahaa si fiican ma jiro waa gar nin walibana sidaasuu meel u tegey keligii waa sida marka 20 sano kadib mas'aladaha Soomaaliya waxa ay ku socon kartaa xukun military ah mar haddii qabyaaladnimo ay ku socon waday oo diintii iminka ugu dambeysay la yimid oo la ismaamuli kari waayey Soomaali ma isleedahay waxaan xukun military ah waxba loogama qaban karo xilligan maya maxaa lagu xukumi karaa Soomaaliya Soomaaliya waxay ka tashataa baa lagu xukumi karaa waa gar waa sida iyadoo ha tashato haya waa sida waa tahay sheeko yar ma noogaga sheegi kartaa qaabkii inqilaabka aad ku qabatay adigoo mahadsan waxaan idinka sheegi karaa waddanka markaan dambe uu burburay siduu noqday markii ugu horreysay yuu soo noqonayay waa gartay dalku waa gartay xamar dhexdeedaa la isku dilaayay waa gartay oo meyd yaalla aad ugu soo kacay ugu imanaysay maalintii waa gartay waa xilli ma waxa weeyaan 68 waa gartay adigu markaas waxaa ahayd miya sarkaal anu sarkaal baan ahaa military ka mid ah waa gartay ha haye aad ugu imanaysay haye waxa la dhacay nidaamkii dimuqraadiga ahaa ee isdoorashada ahaa waa gartay rag baa ku shubtay haye waxa soo baxday buur xakaba oo cid laga soo doortay aanay jirin waa gartay haddana kuraastii markii dambe buur xakaba rag ku fadhiyeen baarlamaanka si fiican ha cid laga soo doortayna hadda ma jirin haye kuwii maalintii doorashadu jirtay la dooran lahaana waa loo diiday inay isdoortaan waa gartay meelo badan baa aan caynkaa ka duwanayn waa gartay heerkaa ma gaadhin laakiin aan ka duwanayn maxaa ka bedeshay marka arrintaas yaa maxaa ka bedeshay marka aad timaadeen waxaan ka bedelay dal dhan oo isbedelay ummadda Soomaaliyeed way og tahay waxa aanu ka bedelay maalintii kacaan ku dhashay dawladda waxa lagu lahaa millions dayna waa gar waxa aanay mushahaaro siin dad dhan oo dawladda ka mid ah waa gar
mashaariic dhan oo socota dadkii ka shaqaynayay way iska shaqaynayeen 9 bilood waaga muddo ku siman mushaahar ay qaateenna ma jirin waaga waxaasoo dhan baa jiray waaga waxaad odhan kartaa runtii dawladnimo haykal uunbaa iska jiray dadku iska eeganaya dawladnimo ma jirin waaga yaad odhan kartaa waata adigu darajadaad ka haysay marka kacaanka uu yimi sanadkii ugu horreeyeyba wuxuu soo ururiyey cashuurtii baaqatay waaga deyntiina wuu bixiyey waaga waddankiina wuxuu u bilaabay markaa inuu horumarin u sameeyo dhabbooyinkii xamaree jajabnaa maalintaasaa la sameeyey waxaa la sameeyey dhulka dhabbooyinka xiga oo iska ahaan jiray bacaad la jiidho oo dadka lugaynaya aan damba laga gelin ma garanaysaa meesha ay marayaan oo bacaad ahayd maalintaa waxaa loo sameeyey pavement baa loo sameeyey waa sanadkii ugu horreeyey kacaanku dhashay soo garan maysid waata adigu kacaanka xisbi kacaanka maxaa ka ahayd maxaan ahaa waxaad ahayd shantii sare golaha sare ku jirtay maxaa kaloo qaabilsanay xilalka kala duwan aad soo qabatay haddii aad nooga sheekeyn karto waxaan qaabilsanaa nabad sugidda soomaaliyeed waaga asaasideeda yaan lahaa ilaa 12 sannadood horena madaxban ka ahaa waa garta markii ugu dambeysay qarankeenu jabay maxaa xilkay haysay marka 12 sannadood yani dalku wuxuu ahaa nabad buu ku noolaa waaga waxaan qabtay oo kale wasiirnimaan qabtay waaga wasiirka waxaan qabtay maxaan ku idhaahdo qorsheynta qaranka waxaan qabtay wasiirka daakhilka waxaan ku dambeeyey markii ugu dambeysay xogayaha xisbiga waaga waata ugu dambeyntii hadda waxaad ku sugan tahay waddanka Belgiumka waxaana aad ii sheegtay inaad diiday dhalashadii waddankan Belgiumka sidee hadda xaaladda Soomaaliya u aragtaa xaaladda Soomaaliya waa soo fiicnaanaysaa sida aan arko dawladda hadda jirto dagaal ayaa ka dhacaya kooxo hubeysan oo magac diimeed wata hadda joogaan maxay ahayd qaabkii way baaba'ayaan sidaan u arko waayo shacbigii waa ku kacay dawladda uun ma aha maanta ma wada necabtiin idinku ya mar haddii shacbigii nacay ma socon karaan waata dalkii muqdisho goorma isleedahay waad ku laaban doontaa insha allahu sanadkan ama sanadka dambe axmed dafle waxaa laga yaabaa inay dad badan ay ku daawanayaan haddii taadu ay gasho oo ay timaado ilaa naftan hebel layskuma sinin maxaa jeclaan lahayd maxay ahayd inaad Soomaali xusuus u noqoto oday ilaahay caabudaya beertiisa falanaya waxoogay dhaqaalaha wuxuu ka qaban karo ka qabanaya weliba wax soo saarka ma aha wax soo saarka iyo wax diridda anigu nin wax keena ma doonayo inaan noqdo oo hard currency-ga ummadda intuu wax ku soo iibsado keena 2 laabna ku iibiya iyo 3 laab ilaahay ka hayga ilaaliyo laakiin nin beertiisa intuu wax ka soo saaro ummaddu haddana bannaanka u dirto oo ay ka hesho hard currency ninkaas inaan noqdo maan rabaa waa maasan tahay ugu dambeyntii su-aasha ugu dambaysan kuu diinay waxa ay tahay maadaama in muddo ah Soomaali aad soo maamuleysay Soomaalina aad garanayso maxaa isu haysataa maanta Soomaalidu maxay ku taqaanaa adigu ma waxay ku haysataa in aad ka mid tahay dadkii waddanka baabi'iyey oo dhibka gaarsiiyey mise waxay ku haysataa inaad tahay wadani adigu maxaa isku Soomaalida weydii anigu waxaan isu haystaa wixii aan qaban karayay inaan qabtay oo ilaahay ugu ogyahay si fiican taasaan anigu isu haystaa mar haddii aan qabtay ya wixii aan qaban karayay intii aan joogay maxaa laga rabaa waa tahay habeen ma saaxan jirin maalin ma joogsan jirin aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Axmed Saleebaan Dafle ayuu kaasi ahaa oo suurtagal ay noqotay inaan wareysi gaar ah aan la sameeyo